garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ayaa ku eedeeyay xisbiga wadani inuu ka been abuuray qaar ka mid ah beelaha deegaan gobolkan saaxil waxaana ka mid ah hadalada waxaan shirkan jarayd anigu aan halkan u qaban qaabinay in waxaynu nahay xisbiyo waxaynu gaarnay dimuqraadiyad waxaan anigu maanta halkan aan ka sheegayaa siyaasiyiinta u hadlaaya xisbiyada eela reer hebel baa nagu soo wareegay waa dadka doonaya hoggaanka dalka waxa aan idin leeyahay waar ka waantooba reer hebel xisbi baynu maraynaa dimuqraadiyad baynu gaadhnay dadka reer somalilanna wayna daawanayaan maadaama ay dadka reer somalilanna daawanayaan oo la isku sheegaya siyaasiyiintii xisbiyada waxaan leeyahay ha laga xoroobo ha laga waantoobo waa wax laga xishoodo dhalinyarada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka saaxil ahna beeshan laga been abuuray ee la yidhi haddaanu nahay aadan iyo abokar waxaanu gallay waddani waxaan jecelahay inay taasi been tahay oo ay tahay dad la soo malaamulay oo la soo ururiyey waxaan leeyahay waddani oon halkan farriin u farayaa oo dadkan meesha ka hadlay aan kaga duwanahay anigu waddani waxaan u arkaa inuu yahay xusbilxaakim ka mida xusbiyada labada xusbiye kale inuu ka mid yahay xusbilxaakim waayo wakhtigii aanu mucaaradka ahayn muddo kordhintu dhib bay nagu ahayd laakiinse waxaad mooddaa maanta waddani inay u hanqataagayso muddo kordhin dambe ooy doonayso inay muddada dib loo dhigo anuu taa waan kaga duwanay dadkan laga hadlay waayo mucaaradka dhib bay nagu ahayd wakhtigaa muddo kordhintu laakiinse maanta waxaad mooddaa inuu noo doonayo annaguna aanu diidanay haddaan xusbul xaakim nahay doorashada in dib loo dhigo wanaga dib bay nagu tahay qodob baan ku darayaayo waxa weeyaan inaan arta dhamaanta ka midaysannahay inaan taageerno sharaxa jagada madaxweynimo ee mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi oo aan ka midaysannahay halka qodob baan ku darayaa waxa weeye war kulmiye waxbuu naga iibiyey waana loogu codeeyey wuuna guulaystay horumarkii baana socda amba wax naga iibiya oo waxna tusa daamana soo raaca laakiin reer hebel baan nahay anagu reer hebel ku codeyn mayno wax qabadna ku codeynna wax qabadkii moodaan aragnay ya ka imkaan higsanaynaba dhalinyaraduna way socotaa waanay ka midaysan yihiin dhammaantoodna wada kulmiye bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah gudoomiyihii dhalinyarada xisbigii cuday burburay oo kana tirsanaa garabkii jamaal haddaanu nahay waxaan ku birnay dhalinyarta gobolka saaxil xisbiga kulmiye waxaan maanta dhisaynaa musharaxa madaxweynaha mujaahid Muuse Biixi Cabdi dhalinyarada reer berberena waxay isku raaceen inay yihiin xisbiga kulmiye waxaan annaga xaflad waa noola qaban kari waayay laakiin waxaanu iska daynay abaaraha iyo waxa jira waxaan leenahay xisbiga wadani war waadigii shalay lahaa abaaraha waxbaan u daayay muxuu ahaa doorashada dib ugu dhigaynaaye war dadkana xaflad u qabanaysid abaaraha ku tarbaan leenahay annagu waa naga iska daynay haddaan nahay garabkii jamaalay waxaanu leenahay haddaanu nahay deegaanka dhalinyarada gobolkan ku nool haddaanu nahay waxaanu leenahay annagu marnaba ka tegi mayno xisbiga talada dalka haya iyo waxqabadkiisa iyo horumarintiisa waxa laaliyo wixii kasta ee beesha deegaanka gobolka saaxil uga baahdana markastana diyaar baanu ula nahay waxaanu u sheegaynaa xusbiyadan mucaaridka ah ee inta tuulooyinka ka soo urursadaan ciyaalka iyo odayaal muqacyo iska fadhiya ee oranaya waxaad tiraahdaan annagoo beeshaasa annagoo Ciise Muuse leeyahay taan mar ugu horeysay wax la yiraahdo aadan Ciise iyo maxamed Ciise toona ma naqaano haddaanu nahay beeshan deegaanka waxa la yiraahdaa Ciise Muuse beesha Ciise Muusena dhammaan waxay ku kooban tahay xusbiga talada dalka haya ee Muuse Biixi Cabdi Shisul Somali Cable TV Berbera